barnaamij looga hadlayay iftiiminta mooshinka sharci darrada ee laga keenay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin odayaal dhaqameed aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. ugu horeyn ayaa waxaa barnaamijka daafuray qabanqaabiyaha barnaamijka injineer Axmed Salaad oo aadan asigoona sheegay in mooshinka sharci darrada laga keenay madaxweyne Farmaajo ay tahay mid wada taabatay bulshada qaybaheeda kala duwan. iftiiminta mooshinka sharci darrada waxa uu yahay marka waxaan rabnaa inaan laba u kala qaadno macnaha waxa la iftiiminayaa waxay yihiin in dadka la baro oo loo sheego koow horta iftiiminta mooshinka sharci darrada waxa haddii aan sharci darrada aan marka hore ku hormarno waxa ay tahay sida ogtihiin waqti aan dheereen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa ay keeneen mooshin aan sharciga waafaqsanayn oo dastuuriyana waxyaabaha lagu soo eedeeyay madaxweynaha. sidoo kale waxaasna goobta ka hadlay Salaad Cali Jeelo oo siyaasi caan ah kana tirsan siyaasiyiinta ugu saameynta badan dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dib u dhac ay ku tahay madaxweynaha mooshinka laga keenay dhammaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay hoos u dhigayso waxqabadkii in badan ay soo qabanayeen madaxweynaha dalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. runtii waxay wax weyn ka taraysaa inay fahmaan shacabka Soomaaliyeed waxa socda oo mugdi iyo wax hulaaban oo shacabku ka warhayn aynan socan oo aynan dhicin isla jaanqaad la'aan aynan dhicin. runtii baarlamaanka Soomaaliya waxaad ogtihiin taageero ballaaran ayay dawladdan ka haysataa waana kuwa difaacee mar allaala markii 3 bilood la joogay ayaa mooshin la bilaabay. dhanka kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo abwaano ka soo qayb galay kulanka ayaa ku dardaarmay in madaxda dalka si fiican loola shaqeeyo. sida ogtihiin dadkii wax soo bartay waxay yaqaanaan waa maxay saynis haddii lagu yiraahdo waxaa leedahay saynis waa aqoon barashada ku saabsan uurka waxa jira waxa nool iyo waxa nooleyn. waa maxay geometry marka la yiraahdo geometry waa erey Greek ah oo macnihiisu yahay cabiraadda dhulka. waxaan rabaa maanta dhan waxaa la magaca laga bedelo waa maxay mooshin. waxaan aaminsanahay anigu inuusan mooshin ahayn uu yahay inqilaab dhicisoobay. xildhibaanada waxaa leeyahay xildhibaanow raggii idin dhalay ayaan nahay raggii idin la dhashaana raggii idin soo dhisaana anigu dadka ma labeeyo raggii idin dhalaana raggii idin la dhashaana raggii idin soo dhisaana yoo dhaga nuglaado bandhiga dhawaaqayaga dhageysta mooshinka soo dhigtay dhanka bidix ka tuura ha dhaqaaqda dawladda iyo dhaqaryada ka daayeen dhibaatada ku haysa haddaad dhaga adeegtaan dhadig iyo labood iyo dhalinyaro iyo waayeel dhabahaanu iswada tumi dhagaxaanu wada quran dhafoorkaanu idin jabin dhiigiinu wuu qabo walaalahan ku dhaartay waa naga dhab hawshaas. Firdawsi Xasan Cabdi warbaahinta dowlad gobolka Soomaaliyeed ee Jubbaland Muqdisho.